أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalayaal, magacaygu waa xuseen muuse, waxaan deganahay Sweden. wacdi iyo muxaadaro ma istaagin. waxaan u istaagay inaan idinla qaybsado dhacdo la yaab leh oo degmada aanu deganahay ee la yidhaaha Yon Shopping ama Roslet xaafadeeda ka mid ah ka dhacday maalintii khamiistii iyo jimcihii bishan maarso ahayd 4 bisha ay ahayd ayaa waxaana ka yeeray galabtii khamiista oo jimcuhu soo gelayay ayaa habeenkeedii galabtii waxaa nala soo ogeysiyey in shir la leeyahay oo xaafadda degmada la isugu yimaado. xafiiska degmada la isugu tegay anigu waan ka maqnaa habeenkaas oo waxaan martiya ii joogtay. guddigii markay tageen oo jinsiyaadkii meesha deganaa oo muslimiinta oo dhan ayaa la wacay. marka meesha haddii la tegay waxaa loo sheegay in nin gaal ah oo fasax oo imaanaya maalintii jimcaha galabtii casirka kadib imaanaya 4 ilaa 5 imaanaya degmadeena xaafadeena imaanaya siiba imaanaya masaajidkeena xaafadeena meeshu kaga yaalo hortiisa imaanaya isagoo gubi doona kitaabka quraanka kariimka ah. wuxuuna ruqsad ka wataa dowladda, ayuu ruqsad ka wataa oo fasax soo siisay in uu wuxuu doono uu samayn karo. waxaa soo raacaya la yidhi guddiga degmada, iyo waxaa soo raacaya la yidhi madaxa nabadgelyada iyo ciidan boliisa ayaa la soconaya oo imaanaya oo nabadgelyadiis ninkaas ilaalinaya. alxamdulilah, markii arrintaas naloo soo wargeliyey oo maalintii jimcaha habeenkeedii cid walba loo soo faafiyey ay soo gaartay oo guri walba ay tagtay, ayaa maalintii jimcaha sidoo kale la iswargeliyey. markii khudbada intaan la gelin ka horaa la sheegay, waxaa la yidhi wax rabshaan yaan la samaynin, buuq yaan la dhigin, mataqaan ninkaas ha la iska fiirsado, ha la arko wuxuu samaynayo. run ahaantii waa walacnay, muslimiinta meesha joogta dhan waa walaaceen. waxaan idin sheegayaa in ninkii warka soo jeedinayey su-aalo adag la weydiiyey. su-aalahaas ay ka mid ahaayeen sharciga waddankan waxaa ka mid a in qof haddii aad aflagaado u geysato ama uu ku yidhaha sixir uu ii fiiriyey ama waa ii cunsuriyeey oo mataqaana takor igu sameeyey ama waxyaaba aan ii qalmin igu sameeyey, waad ganaaxaysaan, waad xiraysaan, maxkamadaad geynaysaan. okay, fa kayfa sidee u dhacaysaa kitaab intaasoo milyan oo muslimiina ay caabudaan oo ay akhristaan oo ay aaminsan yihiin inuu yahay dastuurkooda iyo kitaabkooda uu yahay, seed waad u ogolaateen? adigu su-aalihii qaar wuu ka jawaabay, qaarna wuu ka jawaabi kari waayey. waxaa dhacday in naag ka mid a naagihii mas-uuliyiinta degmada inay arrintaa ka cararto, ay ka baxday meesha oo tiri anigu warkaas kuma jira, hala joojiyo warkaas. haddii la joojinaynina wixii ka yimaada idinkaa mas-uula, iyadana waa ka baxday shirki. calaa kulli xaal halkoodii kasii socdeen. annaga markaa waa tagnay masaajidkaan isugu tagnay, waa shirnay. galabtii markii khudbada laga baxay waa la shiray, ilaahay alla baryaa la galay. wax kaloo la sameeya lama yaqaan, waa laga xoog badan yahay. degmadii oo dhan waxaa lagu soo daadiyey, boliisaa lagu soo daadiyey. luuq walba, koono walba waxaa dhigay boliisaa la dhigay oo hubaysan ayaa la keenay, iyo ambulance iyo mataqaana baalkii baabuurtii boliiska ayaa meel walba lasoo dhigay. alxamdulilah, ilaahay mahadiis. nus saac markay ka dhiman tahay oo ninkii la sugaayo ayaa waxaa guddi ordaya yimideen. bishaaradii allah timid, bishaaradii alle ayaa timid oo odhanayso ninkii intii la socotayba cudur oo aan la aqoono coronavirus u eg kana duwan ku wada dhacay, hoteelkii lagu karantiilay. eesaa ku bashaaraysta, waa arrintii way baaqatay. marka ilaahay waxaa uga baryaynaa, waxaan idiin sheegaya walaalayaal, kitaabkaas iyo intii xaq ku wadaba ilaahay baa ilaashanaya, ilaahay baa ilaalinaya. tii abu aalib markii geela laga qabsaday oo uu kacbada u socday, inuu soo kacbada u socday
mataqaanaa uu difaacayey maka uu difaacay kacbada uu difaacayay ayaa gaalkii wuxuu yiri abu taalib aniga geelaydiyaan ka raba geelayda isii oo kacbada uma socotid inay ugu dagaashid maya oo yuhuudda kula dagaalmayso maya munaafiqiinta kula dagaalmayso maya ilaahay baa iskale ilaahay baa ilaashinaya yiri haddana waxay taagantahay kitaabka ilaahay baa soo dejiyey ilaahay baana ilaalinaya marka walaalayaal arrintii saasay ku dhammaatay wala socda intaas rabay inaan idin wadaago ilaahay caza wajal ayaa daawanaya muslimiinta faraxa ay qaadeen ma malayn kartid alxamdulilah ilaahay baa mahad leh ilaahay baan ku mahadinaynaa intaasaa idin soo gaarsiinaya walaalayaal jazaakum allah khayr faafiya gaarsiiya intii aad kari kartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu